waxaa diyaaradan lagu magacaabaa kaaraha cirka. dowladda Maraykankuna way ka mamnuucday helitaanka diyaaradahan dowladaha adduunka xitaa Israa'iil, waxayna hawada u duushaa si bilaa dhiba. xabadda kaliya ee diyaaradani waxay awooddaa inay baabi'iso ciidan dhammaystiran. sidoo kale markay hawada duulayso lama arko diyaaradan, waana diyaaradda F-22 Raptor. waxaana lagu naanaysaa kaaraha cirka ee duulaya markii ay gacan sarreynta hawada ay lahayd diyaaraddii F-35 ee Maraykanka. waxa ay Ruushkuna soo saareen diyaarad lagu magacaabo Sohai 57 una dhiganta diyaaradda F-35, waxaanay ahaayeen qaar isku cidhiidhsada horumarinta diyaaradaha ilaa ay soo baxday diyaaradani horraantii qarnigii 20aad. waana diyaaraddii ugu horreysay ee jiilka shanaad ah, waxaana sameeyey horumariyeyna shirkadda Lockheed Martin ee Maraykanka laga leeyahay. wixii wakhtigaa ka dambeeyeyna waxa uu aqalka Koongareesku soo saaray qaraar ka mamnuucaya in la iibiyo diyaaradan, xitaa Israa'iil inaan laga iibin karin. waxaanay isku dayday inay hesho dowladda gumaysigu si ay dhanka hawada ugaga sarreyso dowladaha bariga dhexe. waxaana dowladda Maraykanku siisay qaar ka mida, laakiin waxay ka xakamaysay adeegsigeeda. waxaanay keeneen saldhigga uu Maraykanku ku leeyahay Qatar si ay ugu noqoto qaar u dhow dowladda gumaysiga Israa'iil. laakiin waxaad isweydiinaysaa waxa ka dhigay diyaaradan midda dowladaha adduunka u kala yaacayaan, Maraykankuna uu u diidan yahay inuu dowlad kaliya ku wareejiyo. waxay diyaaradani leedahay awood ay hawada kaga dagaalami karto, weliba si dhib yar. mana jirto diyaarad kaliya oo hawada kula dagaalami karta amaba kaga hor imaan karta. waxaana arrinkaa u sababa awoodda ay u leedahay inay isqariso oo aanay qalabka raadaarku muujinayn. wuxuuna arrinkaasi siinayaa ammaan aan ku koobnayn hawada oo kaliya, ee xitaa dagaalada dhulka awood sare ayay ku leedahay. waxaanay u samaysan tahay diyaaradani inuu duuliyo qof kaliya oo ah bayloodka. diyaaradan waxaanay leedahay 4 baal, waxaanay ka caawiyaan inay u dagaalanto si degan iyo inay u duusho masaafooyin fogfog. wuxuuna dhererkeedu gaarayaa 19 mitir, waxaanay ku socotaa xawaare gaadhaya 2500 oo kiiloomitir halkii saacba. waxaana ku rakiban qalab calaamadinaya masaafooyinka fogfog ee uu doonayo inuu duuliyuhu wax ka duqeeyo. waxaanay qaadataa 6 gantaal oo awood u leh inay bartilmaameedkooda ka toogtaan masaafooyin gaadhaya 48 kiiloomitir. waxaana lagu qiimeeyaa gantaalada $2 milyan oo dollarka Maraykanka, halka diyaaraduna ay tahay $500 milyan dollarka Maraykanka. waana waxa ka dhigaya inay noqoto diyaaradda adduunka ugu qaalisan. wuxuuna aqalka Koongareesku joojiyay samaynta diyaaradahan 157 diyaaradood oo kaliya ilaa waqtigii la bilaabay sanadii 1998. may awoodin dowlad iyo ciidanba inay horumariyaan diyaarad dhaafta amaba mid diyaarad ka awood badata.